marka diinteenu qatliga iyo dilka say u adkayso wad arkaysan quraanka meeqaayad baan akhrinay hadda wax kama khudbada waxaan ku soo qaadanay quraan ma akhriyay oo hadda khudbooyinkii waxay u badan yihiin quraan sababtu waxay tahay nabiga sallallahu alayhi wasallam khudbooyinkiisa wad aragteeno khudbatu hajjatul wadaa iyo khudbatul istisqaa iyo khudbatul ciidayn iyo munaasabada waa la gartay laakiin jumca kasoo khudbayn jiray awal khudbatul jum'atu nabiy aaway xagayta allah khudbadiisu waxay quraanka markaas waxa maqlaysaa saxaabi dhaaya ana suuratu qaaf waxaan ka xifdiyay nabiga oo minbarka ku akhrinaya khudbada jumcada suugu celinayay wajaa sakratul maut bil haqq suuratu qaaf oo waxaan ka bartay khudbada leh marka khudbooyinkiisu waxay ahaayeen quraankaas marka khudbooyinkeenu waa inay quraanka noqdaan maxay quraanku wuxuu dhaafay ma jirto marka hadda in la isdilo ma banaan tahay ma banaano dad muslima inay xaq darro isu dilaan ma banaano maxaa u daliila meeqa quraan akhrin wama kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an kama hadaytay waa wax kale ahkaam baana ka taala in diyo la bixiyo qofka soo diyo bixiyay ayaa hadana waxa laga rabaa qofkii wax dila inuu 2 bilood oo soona oo israacsan uu soomo si qofku isaga ilaaliyo inuu wax dilo hadda diyadii uu bixiyay waxa lagu heshiiyay diyada in la bixiyo diyo bixintu waa shay dadkii wax laga dilay ayaa diyada la siiyay laakiin ilaahigi yiri waxyaan la dilin ee amarkiisii la jabiyay ee wax la dilay dambigiisa xagee laga keenaya si taasna lagaaga dhaafo shahrayni mutataabicayni tawbatan min Allah taas ilaahay baa iskale 2 bilood ilaahay ka rabaa waa marka qofkii 2 bilood aan soomi karin lama ba soomi kare hadda waxa isku dili waa naftaada u nax waa kamaaga haduu kas yahayna kas asaw yaab isweydiinayb ko waxa la yiri taariku salaad ma la siinayaa zaka ma la siinaa taariku salaadka markaas sheekhu wuxuu yiri kitaabu salaati iyo kitaabu zakaati yaa horeeyo waxa horeeyo kitaabu salaati kadib kitaabu zakaati la soo gaaraa wuxuu in taariku salaad kitaabu zakaati maxaa soo gaarsiiyay maxaa hore loogu soo dili way goormaan ku kitaabu zakaati maxaa soo gaarsiiyay marka hore ilaa kitaabu salaati lagu soo dilay oo la yiri ninkaas waa taariku salaad baa la yiraahdaa marka hadda kii kamaaga ahaa ayaa waxa intaas oo adayg laga keenay diyo 100 neef oo geelaha laga bixiyo markii la bixiyo kadib kii dilay 100 neef qabiilka iyo qaraabada bixisay qofkii wax sameeyay waa inuu dareemo xanuunka kama bayna ahaydoo baabuur uu waday baa si kama qof ugu dhuftay muuna arkaynin fi nihaaya asagu baa waday baabuurka marka inuu dareemo ayaa laga rabaa marka maxaa lagu sameeynaa diyadii hadii laga dhiibo 2 bilood oo soon ah laga rabaa markuu 2 bilood sooma markaas ka bacdi amru ila Allah aakhira la isugu tagaaya kii toos sooma asaga oo kas oo kama aan ahayn ilaahay muxuu yiri waman yaqtul mu'minan muta'ammidan qofkii kas wax u dila mu'min gardarro qofkii u dila meeqaal isu daba dhigay fajazaa'uhu جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما هو إيجا فكتاي وأنا كس وي أحد لأن كس وحلو قدر موجتهد قلبك واستعمالي وحلو قد أنت أي تهاي النية ده أساس أي تهاي مركورة وحالي هذه محابك هو سود دوي يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا اسكهوا بصدق قفا كو خلط منه اسكجرا آية كلام كان آخرنا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا ولا تقتلوا نفس التي حرم الله إلا بالحق وعباد الرحمن وحاكم الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفس التي حرم الله إلا بالحق يعني انت سعودان وآية قرآن مركا الحمد لله أنك الصومالي هدان هاي إنك سو وقت دير أي أرنتو إنه سعودتي لكن هدانا أقاعد الدين تان وحوين بينو ترتي دادك وحا كالبدباديي أو آدي يعني أردمي إلا إسلايو ودينة إسلامك waxaad arkaysaa kuwa kirishtaanka ah haday fursad yar isu helaan oo dawladoodu waxoogaa yar booliska oo dabacsanaan oo ku dhaco way isboobsiinayaan markaas muddo kooban waxay iska dilayaan eber way isdhameynayaan bal waxa isku sameeyeen fiiri Burundi iyo Rwanda iyo markay isleeynaayeen 3 bilood gudahood ayaa imise iska dileen inaga hal qof iyo 2 qof iyo waxoogaa iyo sidaas oo kale laakiin ay waxay sameeyeen kaniisadan oo 800 kun qof ay ku jirto yaa dhinacayntii laga istaaga dab lagu qabtay dadka dhaway dhinteen inaga saasoo kale yani qof dilaaya iyo mid iyo 2 iyo 3 inaga haddana waxa Soomaalidan qabayl hadii la soo laaya xataa waan isu egnaa yaa ina kala garanaayo hadba meeshii markaas dhalinyarada waxay dhan moogtay meeshaas ay ka shidan tahay Soomaa hadba meeshii ay ka shidan tahay oo qabiilka markaas meeshii u badan yahay oo dadka yani kuwan kala dilaaya hadii la joogo kuwan ay u shidan tahay baa qabiilkooda la sheegtaa bis warni wadaan saaxiibanahay reerkiina ii sheeg maalmaha maxalada dhaydin bis qabiilku lu ku qoray bis inay hebel bis wayna soo martay sagaashimeeyadii markii qabiilka la isuuleen baabuur dhan oo socda intii la isteejo waxa la soo dega qabiilkiina sheega qabiilka maxaa quraan miya xifdisan tahay adig kii wax raadinay markii albaabkiisa xulee qof uu weydiina adiga tahay meesha aaga wala yaqaan moogtay dadka markaas haysto oo qoriga haysto oo saasa ka uu yahay la sheegana
أنا غير كاسانا هي صعب ما أنا أحدوك هذا دنك كلا سومالي وأبتي وعذير وهبلو أنت إسرائيل إسها إسرائيل لكن أنت كلا والس بتبادينا يا أبتي سؤال أذير كي سؤال حاجة ورنا وحنسكوا سنة سياسة ديو كرسي أن كليرينا إنه وحن رون ما دد بنا سوف فهم سنة شيء كذا ددنا وحيوقاتهم نوحي سياسة الإسكولينا ريبل عند دمينا ريبل يا دمين كذا ريبل ما دمين كذا كان عارتين ما أنتوا دعاون أنت الله بوفي قريه دريسان لحرو مركل السيسي حنا وين دمات الله تو عجيق ماشان كسول أنت كان على دمين وين بناء على دمين كذا marka maagla la isugu dambaaba ma ahine meeshan cid la dhameynaa ma jirto cid meel socotana ma jirto qof waqtigiisu dhamaadin baan la dilayaa ma qof waqti u dhiman yahay cid dili karta ma jirto qof waqtigiisu dhiman yahay lama dili karo qof waqtigiisu dhamaadayna ma joogaayo mar haday saas tahay adigu gacantaada ilaasho dambi ha isku galin taada ka soo bax hadhow yaan lagu raran waxa kale marka dil iyo wixii ku saabsan saas aan dhahnay mid kale waxaan soo qaadanay adduunka maanta aynu joogno siraac waxa ka jira xaq iyo baadil يا قردران يا ديدن هرتي لا ودا نولاادو سومالي حكومه waxay dheen carab waxay dheen intay ku nabto ay nabiga kaaga hormartaa leen af carabiga taqaana moogta carabtu carab intay ku nabtay nabiga kaaga hormartaa dheen gaaladu intayna nabaan oo dulmi oo dhan ay sameeyaan hadana warbaahintii haystaano waxay iska dhigayaan kuwa meel ay istaagaan la in ayaga yihiin waxa la kari la yahay ee laga noolaan la yahay inuu muslimka yahay yaa yiri sidaas muslimku wuxuu ogol yahay in la wada noolaado waxaan ogolayn la wada nool waa gaalada quraanku wuxuu leeyahay waqala alladheena kafaru lirrusulihim waxay ku dheen lanukhrijannakum min ardina aw la ta'uduna fi millatina ama waad baxaysiin oo dhulka xaq uma leeyahay aad ku noolaataan ama sida anaga aan rabnay la yeelaysiin qala awlaw kunna kaarihin lanuhlikanna adh-dhalimin fa waxa ilayhim rabbuka lanuhlikanna adh-dhalimin yani xaqu iyo baadilku saaseen yaa soo bilaabay gardarada waxa soo bilaabay gaalada kaana naasu ummatan waahidatan dadku waxay ahaayeen nabi aadam markii laga imaaday dad kaliya oo ilaahay caabuda oo rabbigooda yaqaan oo ummatan waahida qaar baa qalloocday oo sanam caabuday fab'atha Allahu nabiyina mubashirin wa mundirin ilaahay baa soo saaray rasuul u sheegaysa wadada aad qaadeen way khaldan tahay ta ilaahay soo aado oo jidka soo mara way diiday markay soo maraan markaas ay la dagaaleen nabi nuux maxay ku sameeyeen nabigu horeeyo ahaa waxay dhaheen hadaa iska dayn weeyay limtantay ya nuux la takunana min almarjuumin dhagaxa lagu dilaaya rabbi inni maqlubun fantasir ilaahu iisoo gargaar ayuu ku ducaysay marka saas ay u soo socotay ilaahay haduu doono dadkoo dhan hal wado wada qaadsiin laha laakiin muuna yeeline walaw shaa Allahu laj'alakum ummatan waahidatan walakin yudillu man yashaa wa yahdi man yashaa wa la tus'aluna amma kuntum ta'malun يعني قفكوا ربنا إلهي ودومين قفكوا ربنا إلهي وبعدين آخرنا والذين ويدين دون واحد سمين إنسان مركز ما واحد كجرتاب كوا إلهي وهنونيي مسكوا ظالمين تاع ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما له من ولي ولا نصير ساسا لسقر بسعودة إلهي دين تسوقر جاري كراسو إنك ينودرن لكن إنه ينودروا إلهي حور ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذكوسكم امتحانا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا والذكوسكم امتحانا ددنا حق إنه هرجل يجعلين ددنا باطلكم إنه هرجل يجعلين كوي باطلكم هذا لسه تاجين كوي حق أي عبصرة وحلين باطل كان ما لأن باطل وحال موت هذه باطل كان أنا لا هلين حق أيو اسمه ذا قف بعدي وصل لين هذا كده هذا إنه أسجل ليه هي أيو اسمه ذا واتيدا كان لينا الصومالي ذانا دول كان سلوك على قيب صدي استعمار كي الأكسونتين سلوك على يالي دول بدنا الصومالي أيا وحقوق دري ودمنا كله كينيا إثيوبيا وحقوق دري